subscribe for more videos. السلام عليكم في اليوتيوب دينارك سبسكرايب صار مقال كان ليك صار أدبا دومات سنتا نرضى بالعلم مقالات بالبرع داو شوعا باقول بوي في رجال يقدم ياشا سملان داو شوعا asxaabta soo dhawaada maanta waxa ku sugan horta kuma sugni carabta meel kamid ah ama yurub meel kamid ah kuma sugni sida ogtiin bariyaan waxa ku jiray dalxiisa ku jirnay oo aniga saaxiibka baaqul boy ku jirno Somaliland aanu ku marayno gobolada kala duwan maanta marka halkay joognaa marka laamiyadani waxaan horumarkan arkaan waxaas leedahay rijaal ama wadamada isha South Africa muu tagay ma tagin aniga waxa jooga magaalada Berbera waa isha dhaqaalaha ee Somaliland waa magaalo xeebeed waa magaaladii dekedda magaalo noo muuqato inuu horumar ka jiro warkii ku sii dheeraan waxaan soo dhaweeyay xildhibaankeena aad ugu mahad celinayna xildhibaan Cali sidoo kale waa walaalkan Mustafa waxaan hadda meesha la dejiyay iyo Somaliland in horta waa soo dhaweysay si sharaf iyo mug leh reer Berbera laakiin si qaas ah hotelka ugu shinay ee Damal magaaladii meelihii kala duwan maanta markaa maxaa u soo baxnaa halkaas joognaa meesha naga dambayso waa taalo loo sameeyay cilmi boodari aabihi jaceelka ayaa loo sameeyay taaladana taaganahay meeshii u deg foornadii wixii dhan waa deegaanay meeshii ku diray hooyo jiray laakiin meesha naga dambayso waa barti yani geeda ku oli jiray geedku shukaansi baalka jaceelku iska fadhiisi jiray ku lisay jiray geedkan ku lisay jiray marka waxa waaye warkii aan ugu badan saaxiibkii hal mar baaquliya u dhiibaa asaa wax yar oo tafaaf nasiinayo waxa kale yani warkii wax yar ka bixin maayarka degmada yani gobolka iyo Berbera degmada Berbera waaye waxa leeyahay horta aad u maasan yahay leeyahay waa nin howlkara yani waa markii labaad oo la doorto yani waxaana taas cadeen u ah qofka bilaash looma doorto qofka waxa lagu doortaa wax qabadkiisa iyo waxa uu sameeyo aniga ma aqaan xaqiiq ma aqaan laakiin waxa i baray yani dhulkan maarto laamiyadani meel badan dalka ka soo maray laakiin sidoo u dhigisay yani laamiyadani marka fiiriyo iyo horumarka ka jira meeshan waxa asleeyahay يعني وحو قلمدا انتو نوليا انو ني جوجو وا wax ka badan ka sii fisha waa saarjina waan u rajeynaa anu u rajeynaa hadda saaxiibkay u dhiibaa soo dhaw saaxiib assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxiibkay xilwan waa salaamaya mustafa salaamaya marka horta Berbera ma jirto dariiq ilaa ilaamiya mar horta warkaas oo caadi amaano inaan wax la fahmo la isku dayo hormar balaaran sameysay oo ku faraxsanahay ninka maayarka asagana aad marka anaga waa run aqoon uma lihin reer Berbera dad nasab ah oo qiimo badan oo sharaf badan weeyaan aad inoo soo dhaweeyeen Somaliland ay dhan waa isku mid markaa sharaf iyo karaam insha Allah ilm boodari hadii qurux la daawado aad mi ku qancayo aniga qadraan soo arkay qararkii hodane maanta waa soo socnaa waa lagu geynaa ka baqaadi xaruntii baa joognaa hadda baqul baa waxay leedahay Berbera jid caada ma loo ijaay may Berbera jid ma maro ilaa ilaami waay warkiina faantaan isku day luuqad hatta laami weeyaan ilaa wasaas ma alxamdulillah markaa horumarkaas markaa maamulka meesha aad aan ku hambaleyna insha Allah جعلك عند بدر maxaa kala hadar meeshii oo soconay wiil jacayl oo aan wasfaamina aan wiil jacayl ah wasfaamina adile baawrkaas gaaraya adi ciyaal weena hal iyo labo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين dhamaan martidayada sharafta leh aad iyo aad baan soo dhaweynaa Somaliland waa magaalo wadankiini waa dalkiini hooyo aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waxaan leenahay welcome to here ku soo dhawaada idinka oo ومنكيني ساسا ku fahmaysaa waxaan leeyahay xaqaloodina imanka wax ku soo dhaweynaya xoqayaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim guud ahaan horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanka oo run ahaantii arrinkan qayb lixaad ka qaatay martidan sharaftalana si fiican u soo dhaweeyay annagu wuxuun baan lahayn inaan soo dhaweyno laakiin xildhibaanka aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay maxaa hayday baaquli boy iyo rijaalna waxaan leeyahay ku soo dhawaada marka hore Somaliland maadaama argeysiyada ku soo horeysay caasimadii marka labaadna waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolkii saaxil gobolkii dhaqaalaha gobolkii horumarka gaar ahaan magaaladii Berbera aad arkaysaan magaaladii jaceelka ee ku soo dhawaadan leenahay waxaan rajeynaynaa
inaad wax fiican aad naga gudbin doontaan guud ahaan Somaliland markaa ku noqotaan Soomaaliya walaaliheena Soomaaliya markaa ku noqotaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad sawir fiican naga doontaan maxaa hayday markaa waxaan ilaahay soo dhawaada markasta soo dhawaada insha Allah iminkana waxaan idin doonaa goobihii kale bilicda iyo quruxda lahaa aynu iyagana soo mari doonaa wali waxba meydaan arag magaalada waa laga shaqeeyay ilaahay baa soo diray golaha deegaanka iyo maayirkooda magaalada rag baa u guntaday waa sidan ka dhigay 10 sano ka hor waxa laga yaabaa dad arki kaleedin maanta inaydan garanteen bayna halkan Berbera tahay marka waxaan ilaahay ku soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa xildhibaankan mar labaad ku celin doonaa insha Allah warbixinta aan ugu daraya waxa weeye hadda aragteen laamiyadan iyo hadda aragteen horumarka magaalada Berbera ka jira halkan qura maanta horumarka dhaqaalaha Berberi ma gaadho bari ilaa galbeed ilaa koonfur uu gaadhaa miisaaniyadda golaha deegaanka degmada Berbera ma sha Allah aan hadda marka u fiirsato degmooyinka bariga caafimaadka waxbarashada dhammaan arrimaha asaasiga oo dhan waxa golaha deegaanka ka qabtaa wax xanaanooyin tahay iskuulla tahay caafimaadkooda tahay inta xoolaha tahay wax aan wax ka qabanin ma jirto marka idinkana war ugu soo dhaweynaa magaaladii Berbera oo ah ishii dhaqaalaha Somaliland maayakana waan idin geyn doonaa insha Allah sayra waa arki doontaan waa ka noqon doontaa idinkoo maamulka la kulmay insha Allah hadii hayna fiiro daayo sharafi ciise mudan waana ka filaynay dhammaan reer Somaliland dhan waa ka filaynay wax yar hadaa la kaftamo horta waa socod doonaa cilmi meeshu deganaa jiray iyo dhammaan meelaha u soconaa laakiin saaxiibka Mustafa waa taageere reer Dudaye waa ka wararsantaa Baryaan xildhibaanka waxa way taageere Arsenal madaxdeeda